muhiimadda tartanka ma ahan in la leeyahay waxaa soo baxday gabadha ama gabdhaha ugu cunto kariska fiican waxaana hartay gabadha ugu cunto kariska xun. muhiimadda waa in la tartamo, la isdhiirigeliyo, aan anaga dhan ku wada dhiirano ama aan isku jeclaano ama isku taageerno qof walbeeto ahmiyadiisa iyo farsamadiisa shaqo, hadday ahaan leed cunto karis, hadday aan leed qurxin, hadday ahaan leed cilaansaar. sidaas darteed waxaan rabaa in qof walbeeto uu sidaas u aaminsanaado haddii tartan ama imtixaan la wada galo dadku isku buundo ma noqdaan, qof unbaa buundo sareeya, qof unbaana soo baxo. waxaan leeyahay gabdhaha soo baxay oo saddexda ah, kaalinta koowaad, kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad galay hambalyo. gabdhaha harena waxaan leeyahay hambalyo. kumiina harena cunto karnimo, cuntadiina xun ama karada ugu xun baa tihiin. waxaad tihiin gabdho tartamay oo qof walbana qofka kaleeto uu ka codbatay oo walaalo ahoo wada siman. waxaa wada karsiin ama wada qabatiin waa waxa anaga aan inkaga dayano ama aan idinku taageerno ama aan idinku daawano. insha allah waxaan idin wada rajeynayaa sida u dhan tihiin guul iyo horumar. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا سلامي دمان ولا كحر الجنالكي مeel kasto adduunka ay ka joogtiin waxaan leeyahay khayr iyo farxad ku noolaada insha Allah. waxaan idin wada rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban sida u wada dhantihiin. waxa iga sugtiinba waa natiijada tartankii oo soo daahday. sababta u soo daahdayna waxaa waaye tartankan wuu ka duwanaa tartankii horeeto oo baart 1 gabadha ugu sheekada fiican ee ku tartansiinaya. taas wuxuu ahaa kaalinta koowaad oo kaliya, kan wuxuu ahaa 3 kaalmood, 1 iyo 2 iyo 3 bay ahayn. kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad markii loo tartamayna waa fahmi kartiin juhdiga ay leedahay iyo inta laga soo marayo. horta wallahi aad waxaan ugu faraxsanahay sida quruxda badan oo qiimaha iyo qaayaha leh ugu soo dhiibateen kommentiyadiina qaaliga ahaa ee qiimaha badnaa. si u wada dhantihiin oo uga wada qayb qaadateen oo barnaamijka u sheer garayseen maasha Allah aad u mahadsantihiin. intaas waxay ii tahay dhiirigelin, idinkana waxay idin tahay dhiirigelin. dhammaanteena dad isku wada baahanahay. dadku markay yihiin dad isku professional ah ama isku maxaa la dhahaa shaqo ah, waxaa la rabaa inay ahaadaan dad isku tiirsan oo istaageero oo isgarab qabto oo kooda hooseeya iyo kooda koreeyaba isla siman yihiin. gabdhaha dhammaantood oo gabdhaha cusub ee youtuberka ah ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay maadaama aad tihiin gabdhihii hadda soo baxay waa inaad kaga daytiin gabdhaha idinka horeeya wanaagga, aad kaga daytiin xurmada, idinka ay istaageertiin, idinka ay soo bixisiin, idinka ay soo jeedin barnaamijyada noocyadaan oo kale dadka qabanaya aad taageertiin, aad ka soo qayb qaadatiin. insha Allah anigana waxaan idin ballan qaadayaa barnaamijkan wuxuu leeyahay part 2. gabdho badan ayaa soo codsaday inaan part 2 kasoo sameeyo. habeen horena waa idin ballan qaaday. gabdhii WhatsApp igala soo xiriiray waa hayaa magacyadooda. qofkay kale u baahan hadda videogan commentiga ugu soo horeeya kaygu noqonaya. waxaan ka rabaa inaad reply kusoo gashiin. qof kasta oo replygiisa aan arko wuu ka qayb qaadan hadduu ilaahay nafta noo simo. insha Allah ani mar walbeeto intaas dhiirigelin ii tahay farxad waxaan u taaganahay inaa idin kale ila farxdiin anna aan farxo. dhammaanteen waxayna wadanahay Soomaali dad walaalo ah, intaasna aan isku taageeraynaa. marka saas darteed gabdhaha guuleystay waa gabdho 3 ah. waxaa tartamay 8 gabdhood. 8 gabdhood oo tartamay macnaha gabdhahaas ma wada ahan inay kuwii hore ay yihiin gabdhaha ugu xun, kuwa soo baxayna ay yihiin gabdhaha ugu fiican. muhiimadda waxay tahay haddii la wada tartamo tartanka qof unbaa soo bixi lahay. ma hal meel lama wada taagnaayo, dadkuna hal buunto ma wada siman ma wada keeni lahayn. tartankaana aad iyo aad waxaa iiga yaabi iigu dhiirigeli kommentiyada ugu yaraan 530 iyo wax la jiro comment halkaas ka arki doontiin. markay ahayd saaka saacada 8 subax ahayd 2 duhurnimo u dambeysay commentiga aan fiiriyo. sababtoo ah waqtigaas waxa u dambeysay codeynta. sidaas darteed wixii ka dambeeyay 6 saac 8 saac kooda 2 duhurnimo wax cod ama tirinin. codka intaas ka dambeeyay waxay ahaayeen cod iska caadi ah maadaama ay tahay xaq darro in waqtigu ay dhamaaday haddana codadka kale aan sii tiriyo. ugu yaraan natiijadan waxaa ka qayb qaatay tirinteeda oo lu ku lahay 5 qof. maasha Allah walaalahay ay igala qayb qaadanayay ee gabdho saaxiibaday ah
si aan anigu qof bini aadan baa soomahan hal qof ama laba qof codkiisa aan u dhaafeenin noqotona natiijo cadaalad ah oo qof walbeeta uu u yahay natiijadiisa saxda ah uu helo qofka kaduu qof kaligiis aad dhahayd aniga kaligay baa wax walba sameynaya waxaa laga yaabaa tirinta naftirkeeda inaad ku wareertid ama aad wax ka qaladid haddaa hal qof codkiisa qaladidna hadda qiyaamay kugu tahay soomaha qof codkiisa asoo helay inaa adiga qalad ka saartid ama aada siinin wax adiga hadhow kuu taalo meel waaye qofkaasna uu ku tashanaya codkiisa maasha allah sida kaleeto waxaan rabaa inaan u sheego tartamada soo socdo in dadka ay iska dhaafaan commentiga 2 jeer lagu soo celinayo ama 3 jeer in ka badan commentiga waxaan arkay 3 jeer in ka badan lagu soo celiyay sidaas darteed 3 jeer qofkii halkiisa Gmail ku soo celiyay hal qof leh waay Soomahan halkaas qof leh oo tixgelinayna laakiin waxaan ii sheegay inaan arkay commentiyo badan oo ilaa tiro 3 jeer lagu soo celinayo commentiga halkii qof leh oo 3 jeer 4 jeer uu ku soo celinayo halka commenti iyo halka qof uu u codeeyay qaar xataa waxaan arkay 2 qof u codeeyay 2 qof hadaa u codeeyay codkaas uu qasaaray sababtoo ah adiga doorashada jooska waxaa leedahay hal qof inuu u codeysid 2 ama 3 daawad dhahayd qof walba hal cod ma loo qoraa adiga hal qof leedahay Soomahan markaas darteed waxaa fiican inaad mar walba aad dooratid halka qof oo aad leedahay qofkaas raba inaan codkayga siiyo aadna waa u wada mahadsantihiin sida u dhantihiin walaalahayga qaaliga ah oo quruxda badan ee channelkayga ku xiran iyo gabdhaha tartan ka soo wada qayb galay insha Allah gabdhaha tartan ka soo wada qayb galay dhamaantood waxaan u wada rajeynayaa guul iyo horumar kuwa guuleysteen waxaan leeyahay guul wacan waxa kaleeto oo la yaab ku noqotay tartankan oo tartankii hore uga duwanaa ma jiro qof helay wax ka yar qofka ugu yar oo cid helin wuxuu helay 20 cod maasha Allah marka taas darteed waxay cadeynaysaa Soomahan in dadkii ay wada guuleysteen oo uu jirin qof ka guuleystay dadka la wada jecel yahay oo yihiin dad walaalo oo dadka u wada sameeyeen janaaladoodan lagu wada xiran yahay si la mid ah tartanka hadda soo socdo oo baartagtooga aan ka sameyn doono gabar walba videoga sidii kii hore 1 daqiiqo ama daqiiqad iyo bar inta waqtiga uu qaato haduu doono videoga 20 daqiiqo ha noqdeen aan soo qaadan doonaa si loo arko channelka qofka ilaa channelkaas qofka leeyahay iska tiraa qofka inuu safiinal laakiin marka qofka geeska u soo saartay cuntadii wuxuu leeyahay qofkan cuntadiisa haduu ka helo soo fiiri cuntadiisa waxay tahay hore ka soo ogow leemaho saas darteed aan u talagalay inaan videoga amar walba ugu soo daro qayb yar oo kamid ah qofka cuntadiisa si hadii aad ka heshid bari aad u soo fiirso u soo tagtid inta marka ku soo gudbo videoga uu soo daahay waxa la rabaa inuu maanta duhurkiisa soo galo anigana waxaan soo daynayaa waxaan duubayaa caawa insha Allah waxaan soo galin doonaa bari subaxdii insha Allah haduu Ilaahay naftana ugu simo sababta taas kaliftayna waxa weeye hadiyadihii 3 gabdhood aan ugu talagalay dukaanka aan ka raadiyaa ka soo waayay horta marka hore waxaan raadinayay bilad ay ku qoran aan ku qoro qof walba magaciisa si uu noqoto bilad caalami ah oo hortoon loo dhahay hortoon waxay bixisaa bilada laga yaabo la soo raadiyaa ku dhayaa tii ayda ma dhicin waxa la dhahay halkan lagama helo bilad oo lagu qoro qofka magaciisa waxa uu sokaysaa la dhahay Nairobi hadda ogtihiin wadanku wuxuu xiran yahay anigana Nairobi ma joogaayo Soomaaliya joogaayo saas darteed ma leeyahay aan ka soo waayay maanta magaalada dhan anuu xataa waxa ku dhahay baawarkayga saaran xataa arki doontiin markaan raadinay dukaankan aan u raadinay biladaha marka waxaan go'aansaday inaan 3 bilood oo kala duwan oo kala nooc aan soo qaado haddana 3 bilood oo isku ekeed isku xigto oo qofka koowaad qofka labaad qofka saddexaad awaa waxaan markaan waxaan rabtaa in la dhoofurto miyaha bilada koowaad la bixinaysa beenta waa wax kale bixin Soomaali Maxamed wala ka saamo beenta waa bilada hore la bixinaysa meesha bilad ma ku heelin aqoon naga dhaafan la dhahantiida moogto waa waxaan maxaa samaysaa لكن الحمد لله هذا بلد حالة ده بريتو صواحدي أما بريتو مالوس كألكين على ده صوص صعدان على إن شاء الله وسوى فيديو كلته أو إحنا نقدنا عن صوص الدرها دو إلهي هذا قبلها كلته أو أصمينا يو أما قبلها ترتن كلته وإحنا نقدنا على بعضن يأفرسع كم ودير محلي ده فيديو قاعد هراء فيديو هراء ترتن وحد رسالة ده وقت ساعدها
saas darteed hadda kadib tartanku wuxuu noqonaa 24 saacadood ka badan ma laga dhigayo 2 maalin iyo 2 habeen aad u dheeraatay waiting dadka ku daalayna ku dheh WhatsApp sidii ugu soo weydiinay maxaa waqti waa dheereysay video commentiisa qaarka ku jiray waqti waa dheereysay 24 saac way badan tahay video kale to gabdhaha kale to tartami doona cunto karinta ilaa baarto ina ka sameeyo ballan qaaday waxay noqon doonaan 24 saacadood waqtiga soo gali waqtigiisa kale to codeynta waa la helaa insha Allah marka biladaha gabdhaha ugu talagalo saddexda ah saddexda gabdhood biladahooda videoga gabdhahaas markay soo baxaan aan isku marka soo dhigaa saddexda gabdhood iyo saddexda markaa soo baxdo hadduu Ilaahay yiraahdo warqaday ku qoran tahay ku dhahay warqadaas ay ku qoran tahay maaragtay natiijada warqadaas lagu soo qoran ku dhahay sababtu maxay tahay hal qof maskaxda waa ka xifdin kartaa soo maahan natiijadiisa laakiin saddex qof hal mar ma wada xifdin kartid oo ma dhihi kartid saddex qof waxa soo keenay anigana heebar marka qaarkood xoogaa waxa iska ahno maskaxda waxay ka ahaa astaghfir maskaxda waxba kamiyay alxamdulillah waayo laakiin waa iska hilmaamano saas darteeda ugu soo qoray warqadaas inaan ku sheego gabdhaha ku soo baxay kaalinta koobaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad maasha Allah gabdho badan oo aad u jeclaa tartankaas ka soo qayb galay aad u taageero inkastoo nasiibkooda uu reebay haddana wax walba nasiibkaaga ma baldiidi karo sooma qof walba nasiibkiisa qadarkiisa ku noqotay wuxuu heli lahaay sooma aan hadda u gudubno tartanka natiijadiisa sidiisaba horena waa idin kuu sheegay laba dhagax hadii la isku dhufto mid unbaa jabo dad hadday wada tartamaana qof unbaa soo bixi lahaa mar walba marka waa inaan taageernaa qofkii soo baxay oo walaalkeena si uu asagana dhiirigelin ugu qaado anagana dhiirigelin ugu qaadno aan farxadiisa ula qaybsano idinkana waxaan ka rajeynaa sida shalay u taageerteen oo ugu codeyseen qofkaas iyo dadka kaleeto walaalihiis oo la tartamaya in anigana i taageero doontiin oonan isugu xumaanin wanaag leh oo naga dhan unaga wadan dhexeeyo hadduu Ilaahay nafta noogu simo aad u wada mahadsantihiin walaalaha ku xiran channelkayga iyo kuwa gadaal iga soo biirayba manitaankiis aan leeyahay shukran alf shukran qaar Allah hadisiyo waxaan markaan u guda galeynaa inaan sheegno saddexda gabdhood ee soo baxday videoga waa idinku dheereeyaa ama leeyahay saddexda gabdhood soo baxday ilaa waxaan idinku dheereynayo waa inaan maxaa dhihi jiray aan hadiyada hataa hay mar wada soo siinayso hadiyada ay kasoo daahday darteed inaan cod iyo war idinku dilo waay marka gabdhaha soo baxay waxay kala noqonayaan sida tan marka insha Allah waxaan ka rajeynayaa videoga xigo ee aan kusoo sheegi doono gabdhahaas inay idinka soo raacin doono natiijadiisa hadduu Ilaahay yiraahdo natiijada ma ahan natiijadu waa tanaay inaan soo raacin doono qof walba wuxuu ku guuleystay gabar walba waxay ku guuleysatay bilad laakiin sidii loo kala codbatay oo kaalinta koowaad kaalinta saddexaad kaalinta labaad loo kala galay ee biladuna kala noqon doonaan sooma mar walba saas waa tartan bilada isku bilad ma noqoto isku qiimana ma noqoto qofka koowaad qofkaas qofka saddexaad saa lagu qiimeeyaa mar walba iskoolka markaa dhigi karna saas xitaa ma hayno buundada koowaad buundada labaad buundada saddexaad daa gashid qofka koowaad galay qof natiijada tartanka waxay noqotay sidan tan kaalinta saddexaad waxaa gashay Maria Cookin oo heshay 55 cod kaalinta labaad waxaa gashay Munas Home oo heshay 119 cod maxay dhihi kartiin kaalinta saddexaad qofka galay kaalinta saddexaad waxaa gashay Sacduush Cookin oo heshay 175 cod waxaan leeyahay dhamaantiin hambalyo Munas Sacduush iyo Maria Cookin dhamaantiin waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin inta guuleysatay waxaan leeyahay hambalyo hadiyadiina waa diyaar iyo kama dhibcaan dhamaantii ka soo qayb galay tartanka codkooda dhiibtay waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin jazakumullahu khayr gabdhaha haray ma dhihi kari gabdhihii kale gabdhaha la tartamay ayagana waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin hambalyo dhamaantii waa wada guuleysanay qofkii rabo inuu ka qayb galo tartanka qaybta labaad commentiga hoose ay ugu soo reply gareeyo insha Allah qofka aan hayo telefoonkiisa ama WhatsApp-ka aan iskala hadalnan halkaas un baa iskala xiriiri doonaa dhamaantii